waxaan marka hore wax yar ka tilmaamayaa muhiimadda wasaaradda ee dalka u leedahay mandate-keeda iyo muxuu yahay si kooban. waxaan kaloo tilmaamayaa waxa xiriirka caalamiga iyo prioritiesku dalka si areooyinka ama meelaha ay noo tahay muhiimadda ugu horeysa inoo leh iyo malahaasay u kala horeeyaan. waxaan kaloo wax yar ka tilmaami doonaa waxqabadka wasaaradda. waxaan sheegi doonaa caqabadaha wasaaradda haysta, kabacdina waxaan ku gabagabayn doonaa inaan ka dhaho sida aqalku uu u taageeri karo wasaaradda. marka sidaad ogtihiin wasaaradda arrimaha dibadda oo aan laydiin sheegayn muhiimaddeeda waxaa ugu weyn wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaasha caalamiga waa kaabadda isku xirta Soomaaliya iyo caalamka. waa albaabka dowladaha dunida iyo hay-adaha dawliga ahi ay ka soo galaan dalka kalena soo xiriiraan dowladda Soomaaliya. waa albaabka dowladda Soomaaliya ay xiriirka iyo iskaashiga caalamiga u marto. wasaaradda oo hagta si joogto ahna u howlgelisa safaaradaha ergooyinka iyo qunsuliyadaha guud ee Soomaaliya waxay si habsami leh caalamka ugu bandhigtaa danaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed. taasina waxay suurto gelisaa in Soomaaliya ay kasbato saaxiibo badan ayna sidaas ku abuuraan maalgashi ugu abuurmaan dalka maalgashi iyo horumar. diblomaasiyad aan dalka diblomaasiyadiisa ficnaantiisa waxaa lagu tilmaamaa inta uu saaxiib leeyahay iyo sida ay u yar tahay cadow uu leeyahay ama dad ay khilaafaad ka dhaxayso. marka muhiimadda wasaaradda arrimaha dibadda waa inay saaxiibo badan kasabtaa, yareysaa maxaa la yihahdaa cadow dalku leeyahay, si ummaddu markaasi ummadda dalkaas degan ay sharaf iyo cizi u lahaadaan, saaxiib badan u lahaadaan, maaragtay dadkooduna uu faa'iido u helo. waxyaabaha ay wasaaraddu qabato waxaa ka mid ah xaqiijinta madax bannaanida iyo qarannimada dalka iyo dhowridiisa, gacanka geysashada sidii deegaanada gobolku nabad u noqon lahaa, ballaarinta baaxadda siyaasadeed iyo dhaqaale ee Soomaaliya, iyo u khadmeynta muwaadiniinta Soomaaliyeed dibadda dalka meelaha safaaraduhu noo joogaan iyo meelo kaleba ka shaqeysa. waxaa prioritiska ama sida ay u kala horeeyaan xiriirada Soomaaliya ay wasaaradda arrimaha dibadda ama siyaasadda arrimaha dibadda dalka Soomaaliya waxaa weeye inaynu marka u horeysa ka bilowno xoojinta xiriirka dalalka dariska ah iyo dalalka IGAD. iyaga ayaynu isu dhannahay, iyaga ayaynu ama isla noolaaneynaa ama isla dumaynaa. waxaan ka wadaa dalalka sida Ethiopia, Kenya, Djibouti, Eritrea, Sudan, Uganda. sidaas aan u sheegay bay usoo kala way u kala dhow yihiin ama istaraatiiji ahaan ugu muhiimsan yihiin. marka haddii siyaasaddeena arrimaha dibadda ay shaqeyso iyo diblomaasiyadeenu dalalkaas waa in xiriir fiican oo iskaashi iyo is-ixtiraam iyo qarannimadeena iyo madax bannaanina la ixtiraamayo, dowladnimadeena la dhowrayo, saaxiibnimo naga dhaxayso, dadkeenu isu soconayo oo aysan caqabad iyo dhibaato la kulmeyn waa inay jirtaan. waxaynu ku xiga dalalka xoojinta xiriirka aynu la leenahay dalalka Afrika. waxay noo soo galaysaa heerka labaad maxaa yeelay iyadana waa qaarad aynu ka tirsannahay,
waxaa kaloo jirta qaaradda Afrika way soo xoogsanaysaa waa isu soo dhawaanaysaa waxay noqonaysaa key player adduunka ee xagga horumarka iyo siyaasadaba waa aad ayaa looga haybaystaa Afrika mid ah haddana way Afrika calankeedii ama trajectory-geedu waxa weeye mid kor u socda innagana iyagaynu isku dannahay hadda maxaafisha ugu waaweyn oo Soomaaliya laga difaaco codadka ugu xoogan waa kuwa Afrika haddaad ogtiin bari dhexdeeda ahayd oo dalalka mid ka mid ah aynu isaahaynay xagasha naga dhaxaysay gudoomiyaha commissionka maaragtay maxaa la yiraahdaa Afrika hadal buu soo saaray ku qasbay dalkii isaga ahaa inay soo diraan wafdi u soo diraan oo Addis Ababa kula kulmaan waxaa la yiraahdaa Musa Faki waa chairperson of the Commission of Africa wuxuu yiri Soomaaliya ma yeelayno in dalal kale farageliyaan sidoo kaleeto President Paul Kagame asaguna fariimo sidaa la mid ah ayuu diray marka Afrika waa waqtigii ay waxa kale oo jirta dadaal socda in Afrika ay isu furanto oo maaragtay soo dhawaato waxaa jira Vision Africa 2063 la yiraahdo waxaa jira Vision Africa in 2020ka colaaduhu ka dhamaadaan waxaasoo dhan waa inaynu la saan qaadnayo aynu ka warhaynaa waxaa kaloo jira markaan shirarka caalamiga tegayno Afrika aad baynu sharaf ugu leenahay si ka duwan sida shirarka dalal kale aynu ka tegayno warkeena halkan joogay waa isu warbixin xaqaa marka waxaan rajeynayaa inuu soo noqon wararka oo website-yada iyo Facebook-yada lagu qoro iyadoo qof lagu xumeeyo مثلا markaan tagno shirarka carabta iyo markaan tagno shirarka Arab League markaan tagno iyo shirarka Afrika markaan tagno waa kala duwanahay sida ixtiraamna loo sameeyo Afrika waxaanu nahay among the equals dalalka carabta mararka qaarkood waxaana loo dhaqmaa sidii aynaan maaragtay ama inaan lacag badan haysan ama inaan maaragtay inaan dunida mid ahayn khasab maaha inaan warkaas يعني بنانك كما دهين إذا عدها كما دهين لكن أقل كانوا كلاه كله كراسي أنا سوقان مدحوينها السودان أيام معلن سووا مدحوينها نرشة كيسان يا مدحوينها كلو إيجاد يوحيري قالت كوجوين أنه قال لي هدان إنه هاي السودان وحويه وحانو كفجاني دلال يدنا رادين إياه وحان إسكود الشيني دل يدلاد عن الربين وقرانيسان wuxuu ka wada sidoo kale xiriirka dalalka xoojinta xiriirka dalalka aan saaxiibnimada gaarka leenahay sida مثلا Turkey dalalka Khaliijka iyo dalal kale oo gaar ah iyaguna waxay noo yihiin priority ka bacdi waxa soo raaca saaxiibnimo qaarkood saaxiibnimo isku dhow yeelan karo laakiin dhaqan iyo diin bayna ka fog waxa iyaduna waayahan dambe soo xoogsanaya oo siyaasadda arrimaha dibadda ay saari doontaa nalka ku daay doontaa xoojinta xiriirka China oo aynu iska wareysan doono China oo Afrika oo dhami ay maaragtay u jeensatay oo sidaad ka warhaysaan infrastructure-ka ama albooliyaasha dhaqaale ee dalalka Afrika xooga ugu weyn wuxuu ka jiraa China ayuu ka jiraa China waxay noqotay the destination ama wax loo yaqaan the Mecca of maaragtay development in Africa marka iyagana waa inaynu u daymo la'aan sidoo kale waxaa ka mid ah siyaasadeena u gurmashada muwaadiniinta dibadda ku dhibaataysan dad badan oo Soomaaliyeed ah meel badan oo dunida ah ku xirxiran ilaa iyo 18 dal baa la sheegaa qaar waa ku guuleysana qaarna wali waa dhibaato naga haysata waa dalkeennii dal waxaa lagu qiyaasaa sharaftiisa iyo sumcadiisa sida uu dadkiisa ugu dumqado dantoodana u ilaaliyo dibadda iyo gudaba marka wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka mid tahay muhiimadeeda iyo awliyaadkeeda wasaaraddu waxay la soo wareegtay howlaha iskaashiga caalamiga ah oo ay haysatay wasaaradda qorsheynta waxay ka mid tahay prioritiska maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ah iridda laga soo galo dalka marka hay'adaha caalamiga ah ama safaarad ha ahaadeen ama kuwa UN ha ahaadeen waa inay xiriirkooda waa inuu soo maraa wasaaradda arrimaha dibadda taasna waa lagu hol jiraa
waxaa wasaaradda awliyaadkeeda ka mid ah dib habeynta maxadka diblomaasiyadda iyo tababarada ee wasaaradda arrimaha dibadda iskaashi caalamiga ah Soomaaliya waxaynu ku jiraa waqti ka soo kabasho burbur iyo dibadii hay'adihii dawladda waa inaan dib u soo dhisnaa sida ugu dhaqso badan modern state ama dawlad casri ma shaqeyn karto haddaysan lahayn institution shaqeynaya institutionska casrigaana waa complex marka waa kuwa murugsan oo xiriiro badan leh marka waxa u baahan tahay resources xoogan oo ah dad iyo maalba marka dadkii waa in la tababaraa oo la cusboonsiiyaa maxad baa jiri jiray maxadkii ayaa loo xaynayaa nasi wanaag dowladda Qatar ayaa naga kaalmeynaysa dib u dhisidiisa laakiin wuxuu u baahan doonaa hawl badan waxaan kaloo u hawlgalaynaa in habaamuuska qaranku uu noqdo mid la dhowro sida uu yahayna loogu dhaqmo iyadana waxaa ka jira habaxsanaan iyo dayac marka wasaaraduna waxay ku dadaalaysaa dhaqangelinta sharciga arrimaha dibadda dib u ururinta iyo kaydinta dhammaan heshiisyada ay Soomaaliya dhinacyo ka tahay habka wada xaajoodka iyo heshiisyada si loogu qeexo xeerarka wasaaradda koowaad casriyeynta xusuus dhowrka wasaaradda dardargelinta iyo sare u qaadidda waxqabadka safaaradaha iyo ergooyinka iyo qunsuliyadaha tirakoobka hantida maguurtada ah ee wasaaradda ku leedahay wadanka dibadiisa baasaboorada diblomaasiyiinta iyo midka shaqada oo wasaaradda gacanta ku haynayso iyo wixii la mid ah arrimahaas waxaan u soo taabtay kuwa badan maahin dalkeena midland waxaa ka jira safaaradaheena wali waa tabardaran yihiin hanti badan oo adduunka dawladda Soomaaliyeed ku leedahay waa diican yihiin qaar waa dhumeen qaarna waxay gowga u saaran yihiin inay dhumaan waxaa ka mid ah safaarado aan ku leenahay meelo istiraatiijiga sida Mareykanka New York sida France Germany Talyaaniga Brussels you name it Kenya marka waxay u baahan tahay awliyaad wasaaraddu in anagoo ku dhisayna dadaaladii wasaaradii hore soo socdeen arrimahaas waxbaanu ka qabanay waxyaabo badanna waa noo dhiman yihiin waad ka warhaysaan baan u maleynayaa xiriirkii dalalka darisku waa soo xoogsanaya aad ayaan isugu soo dhawaanaynaa waxaad ka arkaysaan isu socodka badan iyo iskeenida Soomaaliya markii ugu horeysay waxay hore uga jirtaa soo dhaweynta regionka waxaad arkaysaan kala yaaci dalalku qaarkood ay nagu sameyn jireen iyo maaragtay buuqi inuusan jirin oo hadda Ethiopia Eritrea Djibouti Kenya kulligood ay ixtiraamayaan qarannimada Soomaaliyeed iyo xoojinta xiriirkeena ka dhaxeeya madaxweynaheenu booqashadii Eritrea ku tagay iyo booqashooyin kala duwan ay heshiisyada inuu saxiixnay waxay ahaayeen kuwa adduunka oo dhan u soo dhaweeyay dalalka dibaddu ama Yurub ha ahaadeen ama jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Mareykanka waxay noo sheegaan waxa ugu weyn oo aynu qabanay inay ahayd in dalalka dariska aan isku soo dhawaanay maxaa yeelay sida uu yiri maxaa la yiraahdaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu yiri madaxweyne farmaajo ayaa iga muhiimsan madaxweynaha Mareykanka Trump sababtoo ah Trump tangentially yani wax yar buu ama ii dhimi karaa ama siin karaa laakiin Soomaaliya ama waa isla degaynaa ama waa isla koreynaa marka wuxuu yiri Soomaaliya is more relevant to me marka anaguna sidaasaan u aragnaa Kenya waad ogtihiin wararka waa ka arkaysay madaxweynaheena iyo madaxweynayaashaas iyo hogaamiyaashaas ay dhaqso u sheekaystaan si joogta u sheekaystaan shalay bay ahayd baan u maleynayaa daraad markii madaxweynaheena iyo madaxweyne Uhuru ay telefoonada ku sheekaysanayeen si joogta ah marka anigu dalalka iigad oo dhan waa maray iyaga awliyaad ka dhigtay kulligood heshiisyo isla shaqeyn iyo waxaan ka wada heshiisyo maahine heshiisyada waa la isku khaldaa memorandum of understanding isfaham ah in la iskaashado ayaan soo saxiixnay waxaan rajeynaynaa mar dhow in ay dalkeena ku kulmaan wasiiro badan oo Ethiopia ka yimid wasiiro badan oo ka yimid Kenya wasiiro badan oo ka yimid maxaa la yiraahdaa Djibouti wasiiro badan oo Uganda ka yimid wasiiro badan oo Sudan ka yimid oo la kulmaya wasiiro badan oo Soomaaliya
xamar kula kulmaya ama dalalka magaalo madaxdooda kula kulmaya iyo technical teams isdhaafsanaya qaar ka mid ah waa aragteen daraad waxaanu soo gabagabeynay shir 11 dal oo maaragtay dalalka islaamka ururka iskaashiga islaamku ka mid ah oo Soomaaliya arrimaheeda loo xilsaaray waa horeeto maalin dhaweyd aniga ra'iisul wasaaruhu anagii Sacuudiga tagnay si aan u xoojino xiriirka marka arrimahaas oo dhan waa socdaan faa'iido ka keenay caqabadaha waxaa ka mid ah waa idin boobsiinaya maadaama waqtigu ciriiri nagu yahay waxaa ka mid ah next time insha Allah qoraal baan idin keeni doonaa laakiin hadda waxaan ku nimid si ujaala si degdeg ah caqabadaha waxaa ka mid ah tabcan saad ogtihiin wasaaradda arrimaha dibaddu muddo dalka dayacay la wadaagta marka wali waxaa ku yar waxaan la yiraahdo human resource dad aqoon leh dalku waxa lagu qiyaasaa dalkeenu muddo ka badan 40 sano in institutions dhaqan institutions lagu shaqeeyaa uusan jirin ku dhawaad 30 sano waa intii dawladnimadu naga dhuntay waynu soo kabanaynay waa soo kufaakacaynay laakiin institutionskii wali attentionka u baahnaayeen lama siinin 10 sano markaa ka horeysana dadku waxay yiraahdaan 80meeyadii laga bilaabay ilaa 90kii gaarigu jarinjar wuxuu ka soo degayay buurta hoos baa loo socday institutions shaqeynaya ma jirin marka 40 sano wadanka kama jirin institutions shaqeynaya wasaarado sayihiin u shaqeynaya systems iyo leema garanaysa that's why ay caado u tahay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa la dhoobay yahay inta wasaaradaha la tagi lahayo laga shaqeyn lahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shaqadooda u qabsan lahaayeen ama wasiirka maartay loo hordhoobay yahay institutionska ayaan shaqeynay qofka Soomaaliga oo 60 sano jira 40 sano ka hor 20 sano u jiray in yar baa markaas dawladda xafiisyada shaqo ka bilaabay marka macnaha qofka Soomaaliga oo 60 sano jira fikrad fiican inuu ka haysan bay u badan tahay oo san arkin institutions oo shaqeynaya responsive dadkooda wax u qabanaya oo shaqeynaya nidaam ku shaqeynaya oo mas'uuliyad ku shaqeynaya oo xisaabtan ku shaqeynaya wax gudbinaya hadda qofkii 60 sano ka weyna adduunka waa retired waay marka ujeedaa gaabkan marka caqabadahan haystay kamid yihiin waxaan ugu yar yani miisaaniyada safaaradaha iyagu safaaradaheena way tahay inay qof kasta u adeegaan oo aqalka suuqyada u adeegaan qaarkood waxa laga yaabaa inaysan 9 bilood aysan mushaar qaadan ma garanaysa anagu isaga kin sheekeynayna ayabaha marka waxyaabahaas oo dhan baa jira oo u baahan in la hayo waxaan u baahanahay marka ku soo gabagabeynaya warkaas aan sida kooban u sheegay aqalka sare ee guddigiisa arrimaha dibadda waxay u leeyihiin waxay mas'uuliyadooda waxaa ka mid ah ka sokow inay leeyihiin sharci dejin iyo maaragtay kormeer ama oversight sida aqalka kaleeto oo mataankooda ah waxaa mas'uuliyad ka saaran tahay hay'adaha dawladda oo dhan si ay u shaqeyn lahaayeen inay hubiyaan in sharciyada ay ku shaqeynayeen ay jiraan maxaa yeelay dadku hadduusan sharciyo iyo nidaam ku shaqeynin hawtalhamag si abaa loo soconaya magaraysa sida qof guri mugdiga ku jiro darbiyada taabanayo albaabkii la abaa la noqonaya ka bacdina ay kormeeraan dabadeedna anigu hadda wasaaraddeedan ka hadlayaa laakiin wasaaradaha kale oo dhan hay'adaha kale oo dalka oo dhan baa idinka mudan laakiin anigu wasaaradda aan madaxda ka ahay institution u baahan in la dhiso weeye institution u baahan taageeradiina weeye qofka markaa jooga iyo xukuumadda joogta muhiim ah institutionka haddii la dhiso berito caruurteena iyo caruurtiina iyo kuwa awaawtiin ayaa madax ka noqon doona ayaa ka shaqeyn doona marka sharciyada waxaa loo dejiyaa si blind ah si justice-ku ay u dominate haddii maanta qofka jooga iyo xukuumadda joogta laga fekero horumar la gaarinayo laakiin haddii futuristic si mustaqbalka looga fekero waxa weeye institution baa inoo dhismaya institution la'aanna ma shaqeyn karo modern state dawlad casri ma shaqeyn karto institution la'aan
maaragtay traditional societies ka baa odaga ka qabiilka geedka hoostiisa inta fariisto geelana xagga iska daaqaya ama lo'du ama beeraha la falaya beeraha waxoogaa effort iyo organization loo baahna dabeedna geedku iska hurdaya hadday xooluhu dhalaaniin isagoo effort kuma bixinin maybe effort yar laakiin modern states oo complex oo tahay inaad Uganda iyo Kenya iyo Mareykanka iyo Saudi Arabia iyo Turkey iyo China iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa aad la dhaqantid waxaad u baahan tahay systems oo si dhib yaraana u shaqeynaya oo culture-koodii oo aqoontoodii wasaaradda arrimaha dibadda waa inay lahaataa dad luqadaha adduunka oo dhan ku hadla waa inay lahaataa waa inay hagtaa diblomaasiyadda dalka waa inay leedahay qalab ay maaragtay maxaa leedahay wufuud hadday inoo imaanayso ay ku hagto ama ku martigeliso waxaasoo dhimi jiraan marka dee idinkaa u hadlay budgetka wasaaraddu waa macno daro ma jiro hadda budget cusub baan soo jeedinay waa la qaybsanay guddiga maxaa yahdaa arrimaha dibadda waxaan rajaynaynaa inaad taageertaan oo aad nala garab istaagtaan si aan xuquuq ka bacdina nagula xisaabtantaan waxaan ku gabagabeynayaa dhaqan Soomaalida ay ka mid tahay institution la'aanta oo igu soo noqda dad badan baa ii yimaada aqalkani waa ugu yaryahay inta ii yimaada laakiin dad kale ay yimaada waxay yiraahdaan constituency baanu ka metelaynaa waxaan rabnaa hebel iyo hebel inaan noo qortid ya horta anigu ma qoree kaligay wasiir wuxuu rabaa iskama qoran karo wixii lagu halaabay waa in system wax lagu qoraa jira laakiin haddaan anigu xataa qori lahaa qofka la qorayaay waa inuu ahaadaa qof wasaaradda iyo dalka wax ku soo kordhin kara qof kasta aan la iska soo qaban marka kuwa markaan iraahdo qofkani muxuu garanayaa hadda lama qori karo tirakoon baa socota budget ma jiro waxaan lama samayn karo safaaradihii waa buuxaan iyagii baa dayacan waxay yiraahdaan aniga constituency baan matala marka waa inaad ama madaxweynaha wax ka soo doortay waa inaad ii samaysaa marka waxaan ku dhahaa waxaan xusuusiyaa oo aqalkan xusuusinaya sida kaliya oo aad constituency-gaaga ugu adeegi kartid waxa weeye maadaama aad tahay xildhibaan ama senator in aad waddanka sharci fiican u dejisid ka bacdina ku kormeertid maalan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sharci u dejisay idinkoo hubinaya guddiga maxalliga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo hay'adaha khuseeyo oo dhan sharciga waxayaan wasaaraddu marka waa inay ku dhaqantaa taas waxay keenaysaa in aan sharcigu ku cad yahay sida dadka loo qoro marka Soomaalida si cadaalad wax loogu qoro Soomaaliya oo dhan baa qof wax yaqaana wasaaradda arrimaha dibadda ka mid noqdo yeelanaya taas hadaad hubisid dabadna igu kormeertid waad ii yeeri kartaan oo wasiirka waxaa dhihi kartaa see wax ku qortaan muxuu yahay nidaamka raacdaan wasaaraddiina dadka jooga shaqaalahoodu meeqa wey safaaradaha dadka jooga shaqaalahoodu meeqa wey hadda artan waxay weydiin kartaan qabiilooyinkoodu maxay yihiin natus waa igu xisaabtan waxa leedahay ka bacdi marka kormeerka oversight-ka iyo sharci dejinta ayaa ku hubinaysaa in constituency-gaagii ay xaqoodii helayaan hadday heli waayaanna waa igu xisaabtanaysaa haddaan anigu qof gadaal ka keeno dariishadda ama aanu dhaqmo waxaa laga yaabaa waxaan dadka qaarkood inay riyo ugu noqoto riyo ugu muuqato iyo inaan u ekaado qof aan realistic ahayn ama Soomaaliyan ka warhaynin laakiin sida kaliya institution isku dhisi karo waa sidaas